بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Cabdalla Sacad macallin jaamacadeed oo wax ka dhiga jaamacadaha isla markaana ku takhasusay fieldka geology waxaanu ka hadlaynaa hada la yiraahdo geology waxa weeye cilmiga la yiraahdo barashada dhulka ma aha barasho kaliya waxa uu juqraafiga ka duwan yahay waxa weeye inta badan waxa dhulka loo darsayaa si cilmiyeysan waxa loo baahan yahay in la ogaado resourceska uu dhulku leeyahay wixii inoogu jira dhulka hoostiisa ku duugan ee macaadin iyo biyo iyo khayraadka dhulka hoostiisa ku duugan sidii loo ogaan lahaa jiritaankooda inta inoo jiraan sidii loo soo bixi lahaa iyo sidii loo isticmaali lahaa ee sida ugu wanaagsan looga faa'iideysan lahaa marka geology laan ahaan waa barasho cilmiyeysan oo ku saabsan dhulka oo wixii activity dhulka dushiisa ka dhacayay sida imiga dhul gariirkii volcanic activity tsunamis oo bad gariirkii ah kuwaas oo kale dhicitaankoodii meelaha ka dhici karaan iyo sida u dhacaan oo kale iyaguna ah geographic waxa kaga duway geographic wax weeyaan artist oo kaliya concentration ka saaraya dhulka dushiisa iyo cidda ku dul nool iyo featureska muuqda ee dhulka dadku wada arkayaan laakiin geology waxa la doonayaa inuu depth source jooga hoose oo dhulka galo ogaado wixii khayraad ee ku duugan halka isla markaana ka taliyo sidii ugu wanaagsaneyd ee loo soo bixi karay loo isticmaali karay okay inagu hadaba wadan ahaan baahi intee leeg baa loo qabaa barashada fieldkan geology marka inaguna markaynu nahay wadan yar oo curdina Soomaaliland waxaynu leenahay khayraad badan ku dhulka dushiisa yaalo muuqda ahaado ku hoostii ku jira ha ahaado oo ay ugu horeyso biyo waxa ugu badan ee Soomaaliland imka la isticmaalo waa underground water waa biyihii dhulka hoostiisa ku jiray ma isticmaalno inagu ku roobka inta badan biyaha dhulka hoostiisa ku jiray sida loola soo bixi karayo iyo sida loo isticmaali karayo iyo sida tayadoodii lagu ogaan karayo inta inoo jira sida lagu ogaan karayo meelaha laga heli karayo wuxuuba waxa u baahan tahay hoos sameynaysa fieldkan geology marka inta aynu biyaha underground waterka isticmaalayno ama baahida biyo ay jirto waxa ka dhigan tahay baahida cilmiga loo qabo ay jirta okay fieldka waa ay cid baran karaysa hadaba waxa uu furan yahay arday kasta oo secondary ka soo baxay dhameystay waxbarashadiisa secondary marka haddii ardaygu uu ku wanaagsan yahay physics ku wanaagsan yahay chemistry ku wanaagsan yahay sidoo kale xisaabta biology-ga way yartahay waxa iska galaan isna waa loo baahan yahay laakiin baahida uu leeyahay saddexda kale ay leeyihiin ma gaarsiisna biology marka saddexda field ardayga huba in uu ku wanaagsan yahay waxa loo damaanad qaadi karayaa in uu ka mid dhalin karayo fieldkan xataa mararka dambe ee ka sii dambeysay ee sii socota okay fieldskan hadaba ama geology markaan leenahay programkan ama barnaamijkan waa maxay ahdaafta ay ka yeelan karnaa ama ay soo kordhin karayaan waxaan isleeyahay waxa laga doonayaa ardaygii inuu daraaseeyo oo uu laan ahaan u baranaya in horta dhulkii saynis ahaan uu garto oo wuxuu noqonayaa nin saynisyahana oo ku takhasusay dhulkii wuxuu wax ka ogaanayaa abuurkii dhulka oo mid Ilaahay bay nafaray inuu ogaano eegno oo fiirsano wuxuu wax ka ogaanayaa maraaxishii kala duwaneed ama stages kala duwanay oo dhulku soo maray taariikhii wala soo kulmay iyo sidii uu dhulku u soo sameysmay waxa uu soo maray oo dhan baa laga arki karayo laga dheehan karaa dhulkii waa marka laga hadlayo in dhul ahaan loo daraasayo on faral loo haysto waxa kale oo hadaafta kamid ah in ardaygii uu baran karo noocyadii kala duwanaa dhagaxaanta baran karo noocyadii kala duwanaa ee macaadintu ay lahaayeen isla markaana saadaalin karo meelaha laga heli karo meelaha ay ku jiri karaan iyo meelaha ay suurtagal tahay in la geliyo kos oo kale si loo soo bixi karo wixii khayraad ku duugan marka barashada dhagaxaanta iyo macaadinta inuu ardaygii kala barto kala garan karana meelaha ay ku jiri karaan iyo meelaha laga heli karo waxa kale oo kamid ah inuu ardaygu sameyn karo exploration biyihii dhulka hoostiisa ku jiray oo kale sameyn karaya sahmin petrolkii sameyn karaya sahmin maxaa la yiraahdaa ardaygu sameyn karaya sahmin guud oo ku saabsan halkii waxa sidoo kale kamid ah inuu ardaygu talo ka dhiiban karayo ama qofkii geologist ah ee ka baxay uu talo ka dhiiban karayo dhismayaasha kala duwan ee magaalooyinka laga dhisayo haday yihiin bridges haday yihiin dhismayaasha waaweyn haday yihiin maxaa la yiraahdaa dams ay tahay ku talo galeen dhisno iyo inuu ardaygu ka talo bixin karo meelaha ayaa ku haboon oo dhulku uu si fiican ula jaan qaadaya horumarintii iyo
in uu si wanaagsan u xamilo ama u qaado mashruucan kolba laga hirgelinayay ee engineering marka waxay noqon karaan niman la taliya dadkii engineeringka ahaa ama civil engineeringka inta badan dhisay environmental geologist buu qofku noqon karaa wuxuu talooyin badan ka dhiiban karaa uu ka gudbin ka erey ku leeyahay door ka ciyaari karaa environmentka iyo eventiska ka socda imiga environmentka sida uu qofkan uga qayb qaadan lahaa talooyin uga dhiiban lahaa sida ugu wanaagsan ee environmentkana loo ilaalin karayo wuxuu noqon karaya qof saadaalin karaya waxyaabaha ka iman kara ama saameynta dhaqaale ay nagu yeelan karayaan macaadinta petroolka iyo wixii kale ee kolba khayraad dhulkan ku dugan iyo waxa la iman kara ardayda haddaba ka baxda fieldkan fursadaha shaqo u banaan waxa u banaan kow shirkadaha dhismaha oo aan isleeyahay dhismayaasha la taagayo inta ugu badan inay ku haboon yihiin meeshan laga dhisayo waxa loo baahan yahay daraasad dhulka in la sameeyo qofka geology wuxuu shirkadaha dhismaha ka caawin karaa meesha mashaariicda dhismaha laga taagaya in ay yihiin meesha ugu haboon iyo wixii saameyn ah ee ka iman kara sida inay dilaac gurigii ku keeni karto inuu gurigani degi karo in waxa in dhulkii daraasad lagu sameeyo waa option u bannaan optionka labaad ee bannaan waxa weeyaan in ay ka qayb qaataan oo ay wax ku yeeshaan hadda dhaqdhaqaaqyada jira ee lagu ilaalinayo deegaanka waxay ku yeelan karayaan kelmado weyn iyagana oo wuxuu ka shaqayn karaa environmental consulting companies wuxuu ka shaqayn karaa qofkii laababka lagu baaro macaadinta ayaa iyaduna ah field kale oo furan oo haddii uu ku jiray ka shaqaynayo iyo haddii isagu qalabkan yar ee basic ah soo qaadanayo oo dadkii uu eegayo iyana waxa weeyaan opportunity kale oo qofkii u furan waxa uu furan oo qayb ka qaadan karaya shirkadahan qodaalada biyaha iyo waxa ka qayb qaata oo waxa uu furan qofkii inuu ka qayb qaato sahamintii biyaha waxa uu furan inuu ka qayb qaato eegidii tayada biyaha waxana uu furan inuu noocii biyaha iyo sidii loo distribute gareeyay wax ku yeesho waana meesha saddexaad oo furan waxa yeena jirta oo imiga field kale oo inaguna ama majaal kale oo furan qofkii fursad ah waxa jira hadda sahamin petrol wadanka ka socota qofkii wuxuu kalmad ku yeelan karaya oo chance ka heli karaya inuu maxaa la yiraahdaa sahaminta ka qayb galo laba waxa sidoo kale as time goes by waxa imanaysa in sahaminta kadib xataa ay timaado qodaalkii iyo socodsiintiisii iyo shirkadaha petroolka iyo sahamintiisa iyo hadhow kamid dhalintiisuna waxa weeyaan field kale oo qofkii u bannaan waxa kale oo wali hadda qofkii u bannaan inuu government institutions waxa ka qayb galo academic institutions ka qayb galaan academic institutions ka qayb gali karaya fieldku waa field curdina waxay noqon kartaa in dadkii la gaarsiiyo oo laga wada qayb qaato waxa kale oo bannaan in shaqooyinkii dawladda sida imiga wakaaladda biyaha kala oo baahantay dad geologist la shaqeeya wasaaradda biyaha oo baahantay dad geologist la shaqeeya wasaaradda macdanta biyaha way u furan tahay shaqooyinkii dawladda sidoo kalena wuxuu la sameeyaa dadkii kale waana isla ka jaaris baday marka majaalooyinkaasna waa meelaha u bannaan qofkii ee kaga haboon yahay dadkii kale si fiican u gali karo isla markaana kamera dhalin karayo okay takhasusaadka hadaba u bannaan qofku ee u gali karayo marka qofka ardayga dhamaysta BSc ku qaato general geology waxa uu master ku diyaarin karaa fields kala duwan oo laamaha inuu ka hadlayo qofkii kasta ee xiiseynaya in uu laamahaas oo dhan ka qayb galo in uu qaato degree geology ahi waxa weeyaan optionka kaliya u furan ama wadiiqada uu ku gaari karayo qofkii ahdaafta mid uuni ay soo galayso ay taabatay biyaleedu ay taabatay resources ama khayraadka ay iska dul socono waxa uu bannaan inuu field ka soo galo oo ah jidka kaliya uu kaga mid dhalin karayo hadafkiisa uguna adeegi karayo wadankiisa